kusoo dhawaada Naaji Show. Waa mar kale iyo barnaamij xiiso leh. Caawa waxaan ka hadlaynaa barnaamij ka duwan wixii hore aan samayn jirnay. Waxay ku socotaan nin loo yaqaano Hush Puppy. Wuxuu ka mid yahay tuugadii ugu weynaay ee internetka wax ku dhaco. Sida wax u dhici jiray, sida loo qabtay iyo wuxuu samayn jiray faahfaahintaas oo dhan idahana. Soo dhawaada. kahor waxaan idin codsanaynaa inaad subscribe saartaan, like, asxaabtiina la wadaagtaan. waa mahadsantiin. waa kuma Hush Puppy. Hush Puppy magaciisa runta waxa weeyaan Ramon Abbas. wuxuuna ku dhashtay magaalada Lagos ee wadanka Nigeria 1982. kadib wuxuu aaday Malaysia. Malaysia markuu joogay wuxuu ku biiray dadka ku dhaca internetka lacago oo dadka ku dhaco. dadka ayaa email-adooda iyo kombiyuutarradooda ayaa hagareyn jireen. sidaas darteed waxay samayn jireen website-yaal fake ah ama book ah. Hush Puppy ayaa usoo wareegay magaalada Dubai wuxuuna meesha ka sii waday dhicitaankiisa internetka. Instagram-ka ayuu wax soo dhigi jiray postooyin ama sawirro asigoo aad iyo aad nolosha ugu raaxaysanaya kana muuqato hanti iyo lacag inuu leeyahay. Hush Puppy ayaa wuxuu ku lahay followers badan gaar ahaan dhinaca Instagram-ka 2 milyan iyo bar gaarayaan. wuxuuna aad ugu faani jiray meelaha tago ama waxyaalaha qaaliga ah oo soo iibsado. wuxuuna dhihi jiray ilaahay baa waxaan siiyay cadawgeygii waan ka hormaray adiga ku dhaga hadal iyo kajin ayuu wuxuu samayn jiray social media. ninkan muddo ayaa lagu daba jiray waxa ku dhex jireen booliiska ama FBI-da Mareykanka iyo booliiska dambiyada baaro ee dowladda Imaaraadka gaar ahaan Dubai. Abbas dadku wuxuu ugu sheekeyn jiray inuu yahay real estate developer. macnaheedu waxa waaye dadka guryaha dhiso ama dabaqyada waaweyn dhiso haddana sii iibiyo. inuu ka ganacsado guryaha. tuuge wax dhacayso haddii aad ku faanto wixii aad soo dhacdo booliiska adiga ma isu sheegay mise booliiska lagu soo sheegay adaa isu sheegay maano gacanta isku xirwe. Hush Puppy wuxuu isku dayay inuu dhaco koox Ingiriiska ama Premier League ka mid ah. dadku waxay leeyihiin waxa laga yaabaa inay tahay Chelsea inuu ka dhaco 124 milyan. horey wuxuu u dhacay lacago malaayiin gaarayso. ninkan waa lagu daba jiray. markii lagu daba jiray FBI-da ayaa warkiisa ka heshay. waxaan lagu ogaaday Instagram-ka ninkan muxuu sameeyaa run bay ka tahay. sanadkii 2020 bishii June ayaa booliiska magaalada Dubai soo weerareen gurigiisii. waxaana loo bixiyay howlgalkaaseti Operation Fox Hunt 2. waxaana laga wadaa ugaarsigii dawacada ama waxay u yaqaaneen Sayd al-Thacaalib ay af carabi ahaan ugu magacaabeen. waa lagu daba jiray. telefonadiisa la dhegeysan jiray. email-adu diro sida wuxuu sameeyo. markii dambe waxaa loogu yimid guriga soo joogo magaalada Dubai. sidii ayaa lagu qabtay. booliiska Dubai ayaa waxay sheegeen ninkan in lagu qabtay 40 milyan doolarka Mareykanka oo cash ah. 13 baabuur oo qiimahooda gaarayaan 7 milyan doolar. 21 laptop, 47 smartphones iyo qalab kale inta kombiyuutarka la xiriiro. sidoo kale inta waxaa lagu qabtay 800,000 oo email ah. kuwaasna waxay iskugu jiraan dad hore loo dhacay ama dad la dhici rabo. maxkamadii Los Angeles ee Mareykanka ayaa waxay ku xukuntay 11 sanadood. Abbas Ramon ama Hush Puppy sida loo yaqaano wuxuu sheegay inuu lacagtan dhan la sheegay asiga waxba ka helin. inta uu helay ay ahayd 300,000 oo dollar bas. inta kalenta waa lagu adeegan jiray. dad kale ayaan u shaqayn jiray u dhahay aniga waxaan keeni jiray accountiga lacagta lagu shubayo markaasna commission la siinay sidoo asaga sheeganayo. muxuu ku caan baxay Hush Puppy wuxuu ka caan baxay dhinaca Instagram-ka ayuu sawiradiisa markuu dhoofayo markuu shopping sameysanayo soo adeeganayo waxyaalaha qaaliga soo iibsanayo baabuurta uu ku socdo Rolls Royce hotelka uu dagayo safaradiisa xataa waxaa arkaysaa private jet ama helicopter soo lagu qaadayo. wuxuu ahay nin nolosha sidee tahay ugu raaxaysto. ninkaneeti baxar waxa geliyay oo dadka soo jiidashaalka u keenay ama in la daba gala keenay waxay ahayd
faanka badan iyo bootada badan aad u faanaya marka faankiisa dhibaatadan dhan u keenan sidaas darteed booliisku waxay bilaabeen inay dabagalaan wuxuu xiriir lahay maafiyada ama dadka ku dhaca internetka iyo tuugada Hush Puppy wuxuu raaligelin siiyey dadkii victimska ahaa ama dhibaatoobay wuxuu sameyn jiray daawadayaal intaas ay ku egtahay haddaa ka hesheen barnaamijkan sii share gareeya like dhaha barnaamij kale ayaan soo wadnaa waana mahadsantihiin waa anigoo ah Cali Naaji ciao